السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دوادا عفيفة.com ما شاء الله تبارك الله ما أنتوا حربينا إني لو ذاك إن شاء الله تعالى دو ربي الرحمن كده هذا كريم شركة آدي آدو في عن آدنا وقينا يدفن آدو في ربضان له ضدك الدراينس كلا يضدك إكسي ماذا يضدك محن كده شركة قلفت يشان آدي آدو في عن وحكيميكال أنا اللهين سين أغنى ما شاء الله تبارك الله waxa ugu fiican samaysan kartaa waxaad gacantaada ku samaysatay ogtahay waxaad ku dartay isla la socotaanba maanta bini aadamku wuxuu noqday wax laga ganacsado khaasatan waxyaaba cosmetic la yiraahdo cream hebel baa soo baxaya dhowr $100 baa la siinaya dadkoo dhan baa ku daadanaya dhowr cisho ku naasibaya ayaanta dambe cilada aad u fara badan buu ku keenaya waxaanad la soconin laga yaabaa inad ogeyn ay tahay waxa chemical la isticmaalayo waxyaabaha ugu daran ee loo isticmaalo chemical cosmetic waxa kamid ah parabens waxa loo yaqaano oo maxaan ku runtii walax ama maado بدشه هرمونالك dadka bini'aadanka ah kamid ah cudurro badan keeni karta hadii hormoonadu khalkhalaana ay cudurro badan iman karaan sida thyroidka hormoonada dumarka hoos u dhaca iyo kuwa ragaba waxyaabo badan iman karaan oo ciladaha hormoonaadku ay aad u fara badan yihiin at the same time cudurrada kale ee kansarka waxyaabaha la midkana ay hoos raaci karaan ilaahay raxmaankan ka baryeena insha Allah taala waxyaabaha kale lagu daro chemical cosmetic waxa kamid ah even iyagoo ay ku qoran tahay 100% pure way oo organic ay ku qoran tahay haddana waxaad ogaataa in lagu daray still chemical ay ku jirto waxa laga sameeyo waa laga yaabaa inuu pure yahay ama organic yahay laakiin waxaan ka maqanin waa chemical tii ilaalinaysa inuu sanad ama 10 sanadood caagad ku jiri karo isagoona qurmin ama xumaanin waa chemical tii macquulka ka dhigaysa inay biyaha iyo dufanku isdhexgali karaan maanta dad digsi soo qaata ama madeebad oo biyo ku shubto oo saliid ku dhex shubto isku mix garaysid ma isgalayaan waxay u baahan yihiin wixii isdhexgalin lahaa ee macquulka ka dhigi lahaa biyaha iyo dufanku in isdhexgalaan waxa kale oo lagu daraa chemical ka ilaalinaysay inuu waxaan midab dooramo oo midabka la rabo midab kale aw yeesho intii qurunka ka ilaalinaysa tii maxaan ku dhahdaa hawada iyo oxygen-ka ka xidhaysa waxyaabo badan kullu hada waa chemical ama ha yareystaan ama ha badsadaan ama organic ku qoran ama inuu ku qorin wax bila chemical ee adduunkan maanta ma jirto waxaad ku samaysan kartid gacantaada mooyaan marka insha Allah taala si aad jirkaaga u ilaashatid in caafimaadkaaga inside out ad waxyaabo badan uga badbaadid insha Allah taala waxa fiican inaad dib ugu noqotid waxyaabaha dabiiciga ah nature-ka ee gacanta Rabbi ku baxay dhulka Ilaahay ka baxay ee biyaha Rabbi ku baxay gacantaada inaad ku samaysatid dadka arkaysa warshadaha sameeyay waa bini aadan sidaada oo kala oo xirfad yeeshay oo ma sha Allah fikiray oo ka ganacsanay adigu ka ganacsayaga marka adiguna maxaan ku naftaada dhaqaale insha Allah maanta waxa rabaa marka inaan niisa gudbiyo bin Rahman cream aan ka samayn doono insha Allah saliida white charmiga la yiraahdo oo runtii aad iyo aad vitamin E antioxidant iyo minerals aad ugu qani ah iyadoo pure bad si qabowna loo tuujiyay oo wax kale lagu darin ma sha Allah dukaanada waxaad ka soo helaysaa organic ah wax yar bayna lacagteedu tahay waxaan isticmaali doonaa in yar glycerol ah oo ii adkayn doonta glycerolka runtii tan si dabiici ah iyadoo qudheeda loo sameeyay ma aha wax chemical soo maray waxayna ka dhigaysaa shaygu inuu yara adkaado oo uu biyo noqonin waxaan insha Allah isticmaali doonaa pure almond oil oo ma sha Allah tabaaraka Allah iyaduna aad iyo aad qani ugu ah vitamin aad u fara badan dufanka dabiiciga ee jirka u fiican ma sha Allah tabaaraka Allah soo koobi karin nimcada ku jirta runtiina aad iyo aad u ilaalisa skinka iyo timaha iyo waxyaabaha la midka ma sha Allah tabaaraka Allah cuntadana waa loo isticmaali karaa waana la cuni karaa waana la marsan karaa iyadoo dabiiciga saas kaligeedana waa la isticmaali karaa waxaan isticmaali doonaa insha Allah lavender oil ku wuxuu qani ku yahay ma sha Allah tabaaraka Allah isaguna in uu murqaha ayuu aad ugu fiican yahay skinku aad ugu fiican yahay jirka ayuu dad skinka ka daadiyaa ma sha Allah tabaaraka Allah qabow buu ka dhigaa waxa wixii karku saaran dhan buu ka qaboojinaya at the same time iyadoo waxaan u isticmaalayaa caraf ahaan aad iyo aad bay u idgoon tahay marka idgoon yar baan ku daray creamkayga iyadaan isticmaali doona dhowr dhibcood insha Allah waxaan kaloo insha Allah isticmaali doonaa in pure shea butter oo African cream ah geed Africa ka baxana maxaan ku dhahdaa West Africa ka baxa runtii intiisa badan laga sameeyo ma sha Allah si dabiiciyana loo tuujiyo wax kalena lagu darin inta badan waxa laga helaa dukaanada organic ah iyo dukaanada African shops ka laga helaa ma sha Allah waxaan isticmaali doonaa kale coconut oil saliida qumbaha oo runtii aad loo isticmaalo Soomaalida aad u isticmaali jireen berigii hore iyadana si qabow oo nature loo tuujiyay
ما شاء الله تبارك الله. waxaan isticmaali doonaa oo kale olive oil oo extra virgin ah oo si qabowna loo tuujiyay ma sha Allah تبارك الله. kullu saliidahan oo dhan iyagoo insha Allah qoraala ayaan rabaa wax walba wixii benefit ku jira iyagoo qoraalina website-kayga soo galiya cafifa.com insha Allah. imika ahaan kulligood waxay qani ku yihiin ay ka siman yihiin inay dufanka dabiiciga ay yihiin walibana dufanka u dhow jirkaaga normal flora ee midhciradaada ku samaysan ama jirkaaga dufanka ku samaysan inay ugu dhow yihiin ay dufanka ugu dhow jirka ka normal jirka oo haysta ah ay yihiin. waxaan insha Allah isticmaali doonaa qaado inta qaadana waan ii sheegdaa ama qaacad waxaan isticmaali doonaa decilitrka 1 decilitr weeyaan insha Allah. waxaan hadhow toole ku shuban doonaa dhalooyinkan yaryar ee arkaysaan oon ku kariyay baking soda iyo aan ku meedhay khal kabacdina aan ovenka kulul geliyo si ay u qalalaan oo microbe uga dhinto insha Allah taala. waxaan ilaahay faa'iideysi wacan insha Allah ka faa'iideyso next time insha Allah. waxaan tusi doonaa in bahalkaasi oo ah shinnida in xanjada malabka shinnidu samayso laga sameeyay on cream ka sameyn doona insha Allah. iyo walibana maxaan ku dhahday how you can make your own deodorant kliklooyinka la marsado oo pure oo bila chemical dawada ilkaha shampooyada saabuunta sida loo kariyo kulli hada insha Allah. waxaan rajeynayaa insha Allah inaan anigu faa'iideysto markeed hore nafteeda ku anfaco idinkuna inaad insha Allah taala aad ka barataan oo isticmaashaan dadkana aad sii gaarsiisaan. waxaan ila daawasho wacan insha Allah إن شاء الله. إمك وحنا بينا نتصل طريقة لو سمينا وحن استعمال دونا إن شاء الله ميكسر مشينك أما مشينك كيجا لو سمايا وحن رجينا إن شاء الله إن يرد على لسان سليدها خاصة كوكونايتكا أدبو أذاكتها مركا بياكل دبضة وجريت. وحن استعمال دونا إن شاء الله 6 ملقاعات أو كمية كوكونايت أويلكا إن شاء الله. وحن كلون استعمال دونا بإذن الرحمن 3 ملقاعات أيضا شيء بتركة إن شاء الله. إن شاء الله وحن كلنا ربنا نستعمله إن شاء الله. waxaan isticmaali doonaa 2 decilitr oo olive oil insha Allah. creamkan aad buu fara badan yahay waxaan rabaa inaan quradaha dhan ka buuxiyo marka insha Allah dad ka yareyn karta qiyaasta halkaas 1 decilitr kalena 1 decilitr insha Allah. كذلك waxaan isticmaali doonaa kalena insha Allah 1 decilitr kamida saliid almond oil ka insha Allah. ما شاء الله. يجا نحط اسكو دح دريا ونسكو الرق ان شاء الله سيره خفيفه دب خفيفه ان شاء الله كشده يا باذن الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. إن ساسي نقطي عد قروحته بدنا لو يسكون حق شدة أيسا يمكن واحد ربعنا نقدر أنت كلا يهدى يمكن إن شاء الله وحن نقدر يا ويت شرمية أو لبا من القاعدة رشها لقول لقدمه جيدا وحيابها يكون في عن تسريد وحكميد وحكي لأن سينو قرمه وحن حماضة maadaama vitamin ku jiro oo iyo C vitamin ba ku jiro isaguna ilaaliyo waxyaabaha qurunka iyo waxyaabaha aad u la dagaalama ma sha Allah. labada malqaacad yaryar oo buuxa oo maxaan ku dhahay wheat charmiga insha Allah. waxaan kaloo ku dari doonaa 10 dhibcood oo lavender oil markaad intan uu ka yar yahay waxaad sameynaysid waa inaad ka yaraysaa lavender kadib kala strong bu noqonaya urtiisa iyo يهاخبو يرينا يالنا يالا كانوا يبضانتا وحن 20 dhibcood baan ku daraya insha Allah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 enough aad baruntu udgoon tahay ma sha Allah.
waxaan kaloo ku dari doonaa malqacad yar teaspoonka mugga tiishaha mugga nimka isticmaalayo kale oo glycerol tia insha Allah si uu yara adkaado hadda doontood ka dayn kartaa muhiim ah glycerol ku darteed ma sha Allah ama waxaad ku dari kartaa oo kale baashani xanjada malabka markii dhawadeen tusayay tan waa lagu dari karaa inta la dhalaaliyo way adkeynaysaa iyaduna ama waa laga dayn karaa qofka soo jecel yahay kolba soo rabo uu samaysan karaa insha Allah iminkana waxaan samaynayaa si khafiifan 5 minutes more isku dhex gelinayaa antan huu dhamaaday creamka wada arki doontaan insha Allah ما شاء الله تبارك الله وكا كريم كده ماضي ما شاء الله تبارك الله وكا اللوشن عادي النقضي الحمد لله إله بمهلا عقلي نسيه عافماتك نسيه ما شاء الله نو مور قناع صدام بيلي إنه قناع صدام إن شاء الله أنا فاهاتين نصيب سنة إنه حيبها اللوبة هني هاي ما شاء الله هذا وحي هردئون إنا نكبره دلوينكيسي إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله وحن aad u jeclaan lahaa aragiisa aragtay inaad urtiisana ila urin lahayd ma sha Allah inuu xaraba inaan ku guro dhalooyinkayga insha Allah insha Allah meel qabo way la dhigaa وكاس ما شاء الله تبارك الله meel yaro qabow dhig si aa isku yara dhex galo in yar u yar adkaado ما شاء الله dhaladan oo buuxda bil iyo dhidhaa ku haynaysa markasta u baahataad iska marsanaysid ما شاء الله laakiin wajiga kan hamarsanaa dufankiisa aad u fara badan khaasatan dadka haysta in oily face-ka wajiga dufanka kule ma fiicna qofka laakiin qallayl kale waa caadi laana dufanku aad ugu fara badan yahay wajiga hamarsan insha Allah kan wajiga waan ni faa'iideyn doonaa waxaan rabaa tusaale ahaan inaan tuso jirka soo u dhaxgalaya ma sha Allah jirka saliid miidhan buu noqonayaa ما شاء الله قعنتي دبدو waxba laga markay on ka xumahay ما شاء الله marka waxaan rajeynayaa insha Allah taala inaad ka faa'iideysataan oo aad iyo aad uga faa'iideysataan insha Allah dalooyinka ku guro meel qabow dhig isaga si fiican isku dhaxgalay insha Allah dalooyinkeena waxaad ka soo iibsan kartaa meelaha yar abu raqiiska la yiraahdo insha Allah ما شاء الله تبارك الله وaka dhamaaday ما شاء الله إمك وحي هردئون إن يرقى بوتشيو تلاقة دان يرقلينيا ما شاء الله وحاسو كريم وين نقضي وإنتي ردان وحسكو در كيسان بلا كيميكالا بلا وحبة إن رنتي خرج بدون يقب حين ما جرته وحيابيه أن استعمالي وردان وحن ديبو استعمالي دون المدة بدن استعمالي دون إن شاء الله هل ربط صيب سنة سواحة ضباهن تهاي ويكو أولا ين هل رمود استعمالي يسيد وحاسو دلا أبوكون نقضي ودفن كيس آدي محان كده أسرية marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka kaaftoontid chemical jirkaagana aad ka ilaalisid inaad cudur gacantaada ku kasbateen insha Allah taala next time waxaan sameyn doonaa creamkan aad baan runtii u jilciyay maanta maadaama ay summer tahay lotion ahaan baan ka dhigay laakiin talaagada markaan yara geliyo oo in yar xarkagu yara qaboobo insha Allah taala wuxuu noqonayaa si cream gacanta la darsanayo kala creamada caadiga taqaanin lotionada yara aanan aad noo fududeyn aanan u cuslayn لكن دفنكيس آد برونتو سرية دراينسكا أيو آدي آد وقف يعني هاي next time إن شاء الله حنسمين دونا face cream قفل بمناسبة يا إن شاء الله تعالى يولي بنا كريم يسدن وكلاء وكو تمها لمرساني أنه صمالي هادينو نهاي pink oil إيو olive oil وحيابها lotion كان عروض أمرنا كهلنا وحيابها آدو كيميكال فربدن ويان صابتا إنو جهلنا وحويان waxyaabaha nooga helno alma siyaabaha nooga helno waxyaabaha lotionka ana waxa weeyaan because of timaha bay jilciyaan ama ay nabaan oo gaska ka nabaan insha Allah creamyo sidoo kale oo timaha la marsanayana waan tus doona insha Allah waxaan ilaahay jiro joogo janna gal insha Allah dhamaantii qof kasto daawanaya insha Allah khayr badan Allah ina sii dhamaanteynba wixii shari noo ah in cibaadadeena caafimaadkeena ku ah ilaa raxmanka naga qabta khayr badan baan rajeynaya waa walaashin Cafifa from cafifa.com
إن شاء الله وينوي next video. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.